xayawaan ku suntan bareerka iyo ka fogaanshaha isdhiibidda waana astaan geesinimo iyo mid ay Afrika ku faanto waana xayawaanka raadkiisa qofkii arkaa ay geeridu u sawiranto. Libaaxu waa mid ka mid ah bisadaha waaweyn wuxuuna ka mid yahay dirta naasleeda ee loo yaqaano Felidae waana carnivore hilibka quuta. Arka libaax waa uu ka xajmi weyn yahay goosha marka ay ugaarsiga tagtase goosha ayaa ah midda ugaadha ugu badan disha. Laakiin bulbulaha ama arka libaax waa hogaamiyaha iyo midka sida guud u ilaaliya deegaanka uu ka taliyo iyo weliba difaacidda dhasha yaryar. Libaaxu waa xayawaan bulsho oo koox iskula socda inta badanna kooxda hal mar ayay ugaarsi tagtaa. Kooxda libaax waxaa la yiraahdaa raxan waxayna inta badan ka kooban yihiin 15 libaax halka mararka qaarna gaaraan ilaa 30. Inta badan libaaxa maanta nool Afrika ayaa laga helaa waxaana la sheegaa inuu asal ahaan libaaxu ka soo jeedo geeska Afrika 120,000 oo sano ka horna uu ku faafay Afrika qaybaheeda kale. Maanta ilaa 6 dal oo kaliya ayaa laga helaa ilaa 1,000 libaax. 10 goobood oo dhul ah oo kaliya ayaana loo qorsheeyay in lagu ilaaliyo sii jiritaanka libaaxa. Marka la eego dabeecadda deegaan ee libaaxu jecel yahay ee aan ahayn beer qaran kaliya 3 dal ayaa laga helaa maanta waana Tanzania, Kenya iyo Zambia. Libaaxa duurjoogga ah dhulkiisa 50% maanta waxaa la wadaaga oo ka agdhawaaday dad wuxuuna aad ugu yaraanayaa dalal uu ku bannaan jiray. Sida ay sheegtay IUCN, libaaxu wuxuu ku jiraa xayawaanada nugul marka la eego heerka ilaalinta ama conservation status. Waxaana arrinkaasi loo sababeeyaa inuu dabeecaddiisa deegaan weynayo iyo in si sharci darro ah loo ugaarsanayo. Dad badan ayaana ku fakiraa inay soo dilaan ayagoo magac iyo ammaan arrinkaasi ka raadinaya. Qoyska bisadaha waaweyn waxaa jiraan kuwa ku caan ah inay geedaha si fudud oo dhib la'aan u fuulaan. Qaarkoodna waxay geedka u arkaanba goobta ugu ammaansan oo ay ku nabadgeli karaan isla markaana ay ku cuni karaan ugaadha ay soo dishaan. Haddaba libaaxu ma leeyahay awooddan oo kale? Libaaxu waa xayawaan si weyn ugu noolaa dhulka Soomaalida waxaana ka garan kartaa sida uu uga dhex muuqdo suugaanta Soomaalida waana mid laga wariyo sheekooyin cajiib ah. Waxaa laga yaabaa inaad maqashay libaax haddaad aragto geed ka fuul oo ma awoodo inuu geedka kaaga daba yimaado. Anaga oo kaliya tani ma aaminsanin ee arrinkan dunida inteeda badan waa laga aaminsan yahay. Dabcan arrinka ah inuusan libaaxu geed fuuli karin inay dadku aaminaan waa wax macquul ah maxaa yeelay geed fuuliddu kama mid ahan dabeecadaha uu libaaxu caanka ku yahay. Libaaxu si guud uguma qaabaysna inuu geedaha fuulo oo waa mid jecel inuu ku nagaado dhulka geedgaabka ah ee furan halkaas ayayna aad uga suurta gashaa xeeladihiisa ugaarsi. Dadka qaar ayaa xayawaankan ugu yeeraa boqorka keenta laakiin sida xaqiiqda ah libaaxu kuma noola dhanka kaymaha ama dhulka geedaha waaweyn dabooleen ee sidaan soo xusnay. Dabeecaddiisu waxay taalaa dhanka dhulka geedgaabka ah ee furan. Dhulka uu xayawaanka tigerka ku badan yahay sida India aad ayaa looga soo horjeedaa oraahda dhahdaa boqorka keenta waa libaax. 70% oo tigerka duurjoogta ee dunida wuxuu ku nool yahay India. Sidaas daraaddeed Hindidu waxay ku doodaan boqorka keenta inuu yahay tiger. Doodoodu ugu weynna waa inuusan libaaxu keen ku nooleen geedaha fuulidoodana uusan awoodin. Waa dhab in libaaxu noloshiisu ku tirsaneen dhanka keenta balse in libaaxu geedaha uusan fuulinba ma ahan mid 100% waa sax la dhihi karo. Khubarada ku takhasustay dabeecadaha xayawaanka alaaba libaaxa geedka kora waxay ku tilmaamaan mid ka duwan libaaxyada oo waxay leeyihiin dabeecad aysan lahayn libaaxyada oo idil. Waxaa jiraan libaaxyada geedka fuula kuwaas oo laga helo dhanka geeska Afrika waxaana si gaar ah looga sii helaa dhanka beeraha qaran ee dalalka Uganda iyo Tanzania. Waxaana mararka qaar la xusaa in laga helo beer qaran oo ku taala dalka South Africa oo lagu magacaabo Kruger National Park. Ma jiraan documentaries badan oo ku saabsan libaaxyada geedaha kora balse muuqaalada kooban ee internetka yaala waa kuwa laga duubay beero qaran oo ku yaala qaar ka mid ah dalalka geeska Afrika oo libaaxu ku nool yahay. Qofka doonaya inuu si gaar ah u xaqiijiyo inuu libaaxu geed fuuli karo wuxuu booqan karaa kooxda libaax ee ku nool beerta qaran ee ku taala Uganda laguna magacaabo Queen Elizabeth National Park. Beertan qaran waxaa lagu magac daray boqoradii Ingiriiska inkastoo dadkii u dhaqdhaqaaqi jiray ilaalinta kheyraadka dabiiciga ay u aqoon jireen Ruwenzori. Haddaba beertan qaran ee ku fadhisa bedka gaaraya 400 kiiloomitir xayawaanka ay dadka ku soo jiidato waa libaaxa.
waxaana ku nool ilaa 130 libaax. Aar, gool iyo cagabarur intaba waa ay ku dhan yihiin. haddaba kooxda libaax ee beertan qaran ku nool waa kuwa awooda inay geedaha fuulaan, weliba si xirfadi ku dheehan tahay. haddaan eegno Tanzania, waxaa dhacda beer qaran oo iyadana lagu magacaabo Manyara National Park. waa haro iyo beer qaran oo 2 kiiloomitir baad kula kulmi karto libaax, waxayna caan ku tahay libaaxyo xitaa awoodaan inay gaaraan laamaha iyo fikta sare ee geedka. xitaa waxaa laga yaabaa inaad beertan qaran aad ku aragto libaax ugaadha uu soo dishay geed dushiisa la saaran, halkaasna ku cunaya. bisadaha waaweyn kuwooda aan libaaxa u babacdhigi karin waxay ugaadhooda la fuulaan geed dheer, laakiin libaaxyada ku nool beerta qaran ee Uganda iyo midda Tanzania waxay awoodaan inay geedka ugu koraan isla markaana ka qaataan ugaadha ay soo riteen. libaaxyadan waa la qabsi ay sameeyeen inay geedaha fuulaan si ay naftooda u ilaaliyaan ayagoo ka fogaanaya cayayaan jiifa cooska ka hooseeya geedaha. sidoo kale libaaxyadan laga helo beeraha qaran ee Uganda iyo Tanzania, sababta kale ee dabeecaddan u yeesheen ayaa lagu sheegaa inay necab yihiin inay ku nastaan dhulka, gaar ahaan kolka cadceedu kulushahay oo diirimaadka ciidda ayay ka fogaadaan. sidaas daraaddeedna waxay istareex ka raadiyaan inay geedaha dhaadheer fuulaan. sidoo kale libaaxyadan geedku waxay u arkaan halka ugu wanaagsan ay ka eegan karaan ugaadha ay doonayaan, kuwaasoo jooga dhulka siman ee cooska leh. laakiin marka la eego habka uu libaaxu u ugaarsi tago, wuxuu ku qasban yahay inuu kol hore geedka ka soo degto, maadaama ugaarsigiisu ku tiirsan yahay inuu kamiin galo oo jidgooyo sameeyo, amaba inay raxantu hareerayso ugaadha diiradda u saaran. geed fuulidda waa arrin ay muddo tijaabiyaan, maadaama libaaxu uu dabeecad ahaan u abuurneen inuu geedaha fuulo, waxaana arrinkaasi dabiiciga u sii dheer in libaaxu miisaankiisu gaaro 170 ilaa 230 kg, waxayna tani sii adkeynaysaa in libaaxu uu si dardar leh geedaha u fuulo. muddo ayay qaadataa inay si wanaagsan u yeeshaan xirfadda geed fuulidda, waxaana arrinkan kol horeba lagu ababiyaa dhasha yaryar ee libaaxa. haddaba waxaan ku soo ururinaynaa sheekadeenna in libaaxu intiisa badan uusan dabeecad u lahayn geed fuulidda, balse in ka mid ah oo ku nool Tanzania iyo Uganda ay arrinkaasi awoodaan kadib markii ay horumariyaan xirfadda geed fuulidda.